Waa kuwee 10 jaamacadood ee ugu fiican dalka Soomaaliya? Xogtan waxaan ka keenay website lagu magacaabo University Rank. Haddii ay tahay marka ay kugu horeysay ee aad na soo booqato, fadlan subscribe noo saar janaalka, like-tana hana iloowin. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Kaalinta 10aad waxaa ku jira Jaamacadda Hormuud. Jaamacadda Hormuud waxaa la aasaasay 2010. Xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir. Jaamacadda waxay bixisaa 7 kulliyadood waxayna kala yihiin Faculty of Engineering, Faculty of Computer Science and IT, Faculty of Economic and Management Science, Faculty of Arts and Social Science, Faculty of Geoscience and Environment, Faculty of Sharia and Leadership, Faculty of Agriculture. Sidoo kale Jaamacadda Hormuud waxay bixisaa Master Program. Kaalinta 9aad waxaa ku jira Jaamacadda Soomaaliya. Jaamacadda Soomaaliya waxaa la aasaasay 2005. Xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan agagaarka kiiloomitir 4 ama nambar 4. Jaamacadda waxay bixisaa 6 kulliyadood waxayna kala yihiin Faculty of Health Science, Faculty of Business Administration, Faculty of Engineering and Computer, Faculty of Education and Social Science, Faculty of Sharia and Law, Faculty of Agro-Veterinary Science. Jaamacadda waxay bixisaa Master Program. Sidoo kale Jaamacadda Soomaaliya waxaa ka qalin jebisay in ka badan 20,000 oo arday. Kaalinta 8aad waxaa ku jira Jaamacadda Banaadir. Jaamacadda Banaadir waxaa la aasaasay 2002. Xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan agagaarka Sebiano. Jaamacadda waxay bixisaa 13 kulliyadood waxayna kala yihiin Faculty of Medicine and Surgery, Faculty of Education, Faculty of Computer Science and IT, Faculty of Engineering and Technology, Faculty of Sharia and Law, Faculty of Agriculture, Faculty of Veterinary, Faculty of Science, Health Science, Faculty of Economic Management, Faculty of Geoscience and Environment, Faculty of Dentistry, Faculty of Social Science, Faculty of Marine Science. Sidoo kale jaamacadda waxay bixisaa Master Program iyo PhD Program. Jaamacadda Banaadir waxaa ka qalin jebisay in ka badan 13,000 oo arday. Kaalinta 7aad waxaa ku jira Jaamacadda Puntland State. Jaamacadda Puntland State waxaa la aasaasay 2004. Xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa magaalada Garowe. Sidoo kale waxay xarumo ku leedahay magaalooyinka Gaalkacyo iyo Boosaaso. Jaamacadda waxay bixisaa 6 kulliyadood waxayna kala yihiin Faculty of Business and Economics, Faculty of Social Science, Faculty of Computer Science, Faculty of Health Science, Faculty of Sharia and Law. Sidoo kale jaamacaddu waxay bixisaa Master Program. Kaalinta 6aad waxaa ku jira Jaamacadda Plasma. Jaamacadda Plasma waxaa la aasaasay May 15, 2005. Xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan dhabarka dambe ee Sebiano. Sidoo kale waxay xarumo ku leedahay magaalooyinka kala ah Beledweyne, Marka, Galgaduud iyo Jowhar. Jaamacadda waxay bixisaa 3 kulliyadood waxayna kala yihiin Faculty of Health Science, Faculty of Computer Science and ICT, Faculty of Economics and Social Science. Kaalinta 5aad waxaa ku jira Jaamacadda Badweynta India. Jaamacadda Badweynta India waxaa la aasaasay May 3, 1993. Xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadada aada garoonka diyaaradaha. Jaamacadda waxay bixisaa 7 kulliyadood waxayna kala yihiin Faculty of Agriculture and Environment, Faculty of Computing, Faculty of Health Science, Faculty of Linguistics, Faculty of Management, Faculty of Public Affairs, Faculty of Social Science. Kaalinta 4aad waxaa ku jira Jaamacadda Simat. Jaamacadda Simat waxaa la aasaasay November 6, 1999. waxaana aasaasay madaxweynaha hadda ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan jidka Warshadaha. Waxay bixisaa jaamacadda 9 kulliyadood waxayna kala yihiin Faculty of Management Science, Faculty of Computing,
Faculty of Social Science, Faculty of Economics, Faculty of Law, Faculty of Education, Faculty of Engineering, Faculty of Accountancy, Faculty of Medicine and Health Science. Sidoo kale jaamacadda waxay bixisaa master program iyo PhD program. Dadka caanka ah ee soo maamulay jaamacadda waxaa ka mid ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo Faarax Sheekh Cabdiqaadir. Kaalinta saddexaad waxaa ku jira Jaamacadda Hargeysa. Jaamacadda Hargeysa waxaa la aasaasay Sebtembar 27keedii 2000. Xarunteeda ugu weyn waxay ku taallaa magaalada Hargeysa, gaar ahaan wadada Bibsi. Jaamacadda waxay bixisaa 10 kuliyadood waxayna kala yihiin Faculty of Agriculture and Veterinary Medicine, Faculty of Applied and Natural Science, Faculty of Business and Public Administration, Faculty of Education, Faculty of Engineering, Faculty of Computing and ICT, Faculty of Law, Faculty of Medicine and Health Science, Faculty of Social Science and Humanities, Faculty of Islamic Study and Arabic Language. Sidoo kale jaamacadda Hargeysa waxay bixisaa master program iyo PhD program. Dadka caanka ah ee ka qalinjibiyay jaamacadda waxaa ka mid ah Muuse Biix Cabdi oo ah hadda madaxweynaha Somaliland iyo Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax. Kaalinta labaad waxaa ku jira Jaamacadda Camuud. Jaamacadda Camuud waxaa la aasaasay 1998. Xarunteeda ugu weyn waxay ku taallaa magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Jaamacadda waxay bixisaa 13 kuliyadood waxayna kala yihiin Faculty of Sharia and Law, Faculty of Agriculture and Environment, Faculty of Engineering, Faculty of Computing and ICT, Faculty of Education, Faculty of Business and Public Administration, Faculty of Economic and Political Science, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy, Faculty of Dentistry, Faculty of Nursing and Midwifery, Faculty of Public Health and Nutrition, Faculty of Medical Laboratory Technology. Sidoo kale jaamacadda Camuud waxay bixisaa master program iyo PhD program. Jaamacadda Camuud waxaa ka qalinjibiyay in ka badan 15,000 oo arday. Dadka caanka ah ee ka qalinjibiyay jaamacadda waxaa ka mid ah Maxamed Xasan Cawke oo ahaa warihii hore ee idaacadda BBC-da. Kaalinta koowaad waxaa ku jira Jaamacadda Muqdisho. Jaamacadda Muqdisho waxaa la aasaasay 22 Sebtembar 1997. Xarunteeda ugu weyn waxay ku taallaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Yaaqshiid. Sidoo kale magaalada gudaheeda waxay ku leedahay 5 xarumood oo kala duwan. Waxay kaloo ay xarun ku leedahay magaalada Boosaaso. Jaamacadda Muqdisho waxay bixisaa 11 kuliyadood waxayna kala yihiin Faculty of Sharia and Law, Faculty of Education and Humanities, Faculty of Economic and Management Science, Faculty of Health Science, Faculty of Computer Science and Information Technology, Faculty of Political Science and Public Administration, Faculty of Engineering, Faculty of Medicine, Faculty of Agriculture, Faculty of Veterinary, Faculty of Dentistry. Sidoo kale jaamacadda Muqdisho waxay bixisaa master program iyo PhD program iyadoo la kaashanaysa jaamacadaha kale ah Ummu-Darmaan Islamic University oo Suudaan ku taala iyo Asian University. Jaamacadda Muqdisho waxaa ka qalinjibiyay in ka badan 10,000 oo arday. Dadka caanka ah ee ka qalinjibiyay jaamacadda Muqdisho waxaa ka mid ah Cali Maxamed Geedi oo ah ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya iyo Cabdicasiis Laftagareen oo ah madaxweynaha Koonfur Galbeed ee hadda taagan. Haddii aad halkan soo gaartay, fadlan janaalka subscribe noo saar, lagta hana iloowin. Mahadsanid.